marka hore bariidada baydhka xaq ahayaan isla balmir busheeyahay barina ma barideen iska balalaayeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh idilkiina magidigin halkan waa cod iyo muuqaal baahiyaa fogaan gaarkii laactiif anigu waxaan hayay Yaasiin Xajiye ku soo dhawaada barnaamij kooban Cabdi Maxamuud Cilmi iyo wiilkiisa waxay kamid ahaayeen dadka geesiyiinta Ilaahay jecel yahay ay u gurmadeen dadka muxsiniinta Ilaahay baa jecel dadkii aad garabka siiseen bay kamid ahaayeen labada nin ee isdhalay ee magacooda ama aan idin sheegay Cabdi Maxamuud Cilmi iyo wiilkiisa weeye iyagoo jooga Hargeysa oo iska tabaalaysan oo walwalsan oo arrimo isbarkani ay haleeleen baan idin soo gudbinay garabaad siiseen waa isgarab taagteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qof kasta wuxuu la baxay isaga Ilaahay baa og ama isaga Ilaahay way soo yihiin bal intii ni ilowday waayadan dambe ilowga fara badan intii ni ilowday muuqaalkii hore intii ilowday ninkaan ka hadlay cidii aan garanayn bal muuqaalkiisii hore markuu Hargeysa joogay hal mar ila yar eega ama milicsada bismillahir rahmanir rahim dadka waxaan doonayaa in kali la saaro wiilaan dhalay baa ii saaray hadii Ilaahay mo isna uu hadli doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin sinaad arkiseen waa bahay kulliyahan badan loo meeray 4 sano loo meereeyay badhantisana waad aragtaan marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku codsanaa xalaali waxay gargaar ayna tari karayaan inay taraan insha Allah ana waxaan rajeynayaa hadii Ilaahay gargaar ama gurmadaan waxna taraan helo inaan kale u saaro ayaan Ilaahay ka rajeynayaa aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal waa daawateen waa ninkaas dhalay waa Cabdi Dheer iyo wiilkiisa Cabdi Dheer lagu naanaysaa muuqaalkan waxa laga soo duubay isagoo jooga Hargeysa waa hore xanuuna isbarkan baa haleelay kadibna kaliyaha fadhiistay Cabdi waa abahe kaliyo markay fadhiisteen bay shaqadii gabeen kadibna way dhinteen wiilka ag fadhiyaad aragtaan wiilashiisa kamid ah baa dabcan inuu kali u bixiyo kadibna qarashkii lagu bixin lahaa baa la waayay dhakhtar ku aadi lahaayeen uruq bay noqotay inay meel u dhaqaaqaan ama way adkaata geesiyiinta Soomaaliyeed ee Ilaahay jecel yahay muxsiniinta Ilaahay baa jecel diinta sheegtay qof kasta oo deeqsa Ilaahay uu jecel yahay qof kasta oo masaakiinta jecel oo waxaystana aad bay u fududahay aad iyo aad bay u fududahay qofku markuu miskiin yahay oo san waxba haysan inuu qof waxaysta isagu uu jeclaado way fududahay aad bay u fududahay laakiin waxa aad u adag qof hantiila oo miskiin jeclaaday aad bay u adag tahay kuwa Ilaahay inaga dhigo iyagoo waxaysta masaakiinta jeclaada rabbiga qaniga ah inaga dhiga taas ama kuwa idinka uu idinka dhigay waa hubantii dadkii u gurmaday ninka qof kasta wixii uu la baxay Ilaahay baa og Ilaahay waxaan ka baryaynaa miisaanka xasanaadka inuu ku saaro Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan ku khasaarin wanaagga samaynayno kuma khasaarna idin Ilaahay inuu nagu badbaadiyo inaga iyo ubadkeena iyo lafeheena baan Ilaahay ka baryayaa bal waxaad ila daawataan mar kale isagoo jooga wadanka liyaa Turkiga oo labadii nin ee isdhalay ee muuqaal qaybta hore aad ku daawateen wiilkii kalidii laga saaro aaba loo galiyay aabihii oo labadoodu ay fiican yihiin oo maanshaalleysan yihiin oo aabihii nala hadlayo oo afkiisa ku hadlayo oo idin ducaynayo Ilaahay idin aqbalo gidigii saaxiibayaal hal mar bal daawada bismillahir rahmanir rahim ilaah baanu mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa rahmaanka ee maaliga mulka ilaah baan horta u mahadnaqayaa bilaadan hadaynu nahnayba inaynu u mahadnaqno Ilaahay ina abuurtay waynu ku mudanahay marka waxaan kala u mahadnaqayaa dadkii hawshayda galay meel kasta ay joogaan imika alxamdulillah anigoo jiifan inila hadlay maanta anigoo fadhiyo oo koofiyad xirmaan inila hadlaya anigoo socday baan iga daawo doontaan alxamdulillah aad baan u fiicnahay tukriyo waan tagay wiilkii de kelidii saarayaan dhalay baa kelidii saaray alxamdulillah rabbil caalamiin ilaah ma hadee baan qabaa kaliyaha marka waxba kama dareeminba
mar walba waxaa la yidhi ooreyd baa tahay markaa dadweynihii debad iyo gudoba iga kaalmeeyey waan salaamayaa anna tukrigaan joogaa hawsheedii waa lagu qabtay way suucan bay noogu howlgashay 6 bilood bay fasaxeen 6 bilood waxay ku noqonaysaa bay yidhaahdeen dalkaagii ka bacdi hadhow hawshaada waad nala soo xidhiidhaysaa hadday soo noqotona waad soo noqonaysaa haddii kalena halkaas baanu hawshaada aanu wixii aad u baahan tahay yaanu ka wada xidhiidhinaa dadweynaha sidaas baan u sheegayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah baa mahadle dadka mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waa u mahadnaqayaa wixii hawshayda ka qayb galay iyo wixii daawanaya ee kale ee muslinaba wiilkiina waa kan duco iga galabsaday ducada idinkuna waad u soo ducaysaan ilaahay fi aakhiraba in ilaahay fi aakhiraba barakeeyo oo wada barakeeyo ninkii kale isaguna xanuunsanayay isna febrerka ku jiray isna waa ladan yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin sidaas baan idinku salaamayaa igare waa u mahadnaqayaa waana salaamayaa aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal guddigiin qof kasta wixii uu la baxay isaga ilaahay way soo yihiin cid kasta oo wax la baxday oo garab siisay ninka miskiinka ee welwelsanaa kurbadii ka qaaday kuwa kurbooyinka hadda qaada qof kurbaysan haddii aad la qaybsato hadda waan hubaa idinkuna waad hubtaan hadda wanaagga ay leedahay intuu leegyahay cid kasta oo garab siisay meel kasta ay joogto anigaan idin magac dhabayno idin kala qaadqaadayn aad baad u mahadsantihiin miisaanka xasanaadka ilaahay ha idiin saaro dembigiinna iyo dembiga waalidkiin iyo ka waalidiintiin iyo ka muslimiinta dee giddigood ilaahay ha dhaafo intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu